بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ومالمه خيرات كبدن حرير كبني آدم كمسلمين تهيئ له ودحية أي كجري خير كبدن كجري كجرنا ما هي المالين عن الميديا إيو سياسة سكوك كانوا أو هالكن عن كير هذا رأي يعني دتكو عن ده مسلمين ما دكوا فعلين لكن hal qodob oo kaliya rabaa inaan ka hadlo oo aday amaanta aan ka hadli waayo runtii waqti baan macna badan yeelanaynin oo hal qodob oo maalmaha dambe xisbigii kulmiye gobolkii awdal la dhaxwar wareegayo runtii yani kul xaws beer xawsanaya dhalinyarada dadkii nooc codka bixinayay ayaan doonayaa runtii inaan wax yar ka iraado intaasaan waxaan idinku yeedhay halkan usoo fadhiistaa tahay inta aanan gelin haddaba qodobka dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan qodobka labaad ee ka hormarinaya waxa weeye waxaan hambaliyeynayaa xildhibaankii axmed yaasiin maalinta dhaweyd loo doortay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga golaha baarlamaanka waxaan leeyahay hambaliyo waa waxaad xaq u lahayd wax horeyna xaq ugu lahayd iminkana aad xaq u leedahay waana kugu soo dhaweynaynaa وانا kugu ixtiraamayna runtii waxa kale oo iyadaan hambalyeynaya xildhibaankii kale ee awdal la tartamay xasan karaamo waxaan leeyahay hambalyo wax kasta iyo si qaab kasta loo tartamay mar hadii aad anaysiyo hambalyeysay xildhibaankii kale ee walaalka ee awdal ahaa oo aanad waxa tirsanaysa ama meesha aad ka dareentay aanad hoostii noogu celinood ree awdal utun iyo xumaan kale oo dhaxmarta aanad ka keenin أيضا أدنى كوجه همبلينيا أدينا رنتي حلا أي نقطنا رنتي أدنى هنكاج واد قاريدو إن شاء الله يوم كان كسرية قضب كان دوني هدمات هنا كان لسه فرسي وحوي حسب بيجي كل مليون سلاح بري هوري كله جاجين في أوضل أو كله علف قادين أيام مالي دويدو حسب كان وطني صوص عاري جودي ما مشاهولها جود حسبك وبقول يسا وحقا سايدة هيد أيها رجوا وينو رنتي ده عن السلحابة هنكود يدرين كود السياسيين تأذ وقصر ريا إذا عدي قرنك على صفر يستان فرا وضلوا كل مية ويد شعري هيو وكاوح يدسي قدومية كل كواد يقولها برلمان حسبي وطننا بقول يلا باطني سايد قف أيو تذوقف في تكسي مكاسة سكاي أقل سنة دولار السنة ده كل مية صار رعى رتي وحن سلاي هالكاسون باب مانتا ماشى سلاي إيريك علي هالكاسون يسوي فريسايت هاي وحن لا كل مية يلون أيديو اللي يرى أقوياء يعني دراسات صحة سوسمية قام كحكومة ممكن يدولدني مثلا لوكرا بامور لوفرليو إسلام كان دراسات دي أوسو ديبين وكان كي دقن كأرى أوضل أو دول هركعيو أنا قلت حل جان وحل هي إلا مدحوين كحين كمركي دراسات دي نتصين أنا أقول حين قرن كويس له والصومالي لا تسيد الحقوق يلا شديدة أيضا أو حلقة بدل في عنتاي أنا روا قرعنا أنت هذا سود جرت دراسات دي اللي تصص ما يصير وكان كي دقن كويس صعدة أنا جي حكومة كنت إلا مدحوين كحين كي وحنو سلقرنا إن أرنك وحلقة صح هاي دبيدنا مدحوينها هي حكومة دي مركي نهرجني مدحوينين وصول ويا أحمد محمد سيرانيو وحوص صار سديد وسير وأريكها يعني إن أي وحكة قبطاي تاي أي صوب بارداي تاي سديد وسير صوب بارداي بارداي كانوا صوص مني وعلى أساس وقاتين وأريك المديرية مالتهم مدحوين وحل كانوا لهم مقعابة يقول تزاز تطبع حوشاني إنه أريكي وحلقة قبنيو مدام إلا هير كان الله مرينيو markii daraasadii soo dhameeyna anana saxta soo xaqiijinay sideedii wasiir ee soo dhignay gurigii xafiiskii madaxweynaha qaranka wuxuu baa bilaabmay halkii laga bilaabay war oo habar jecel maxay haysaa halkan ayada waxba ka maqan habar yoonis yaa u dhameystaa iyadna sidii tabanaysa oo habara waliyaabo soo ko iyaguna ya ayuu muxuu hayaa arab yaasay arrinkii ree awdal tabashadeedii wuxuu baa la dhexgeliyay bad kale oo aan yani dabadeedna wuxuu baa ka soo baxay xukuumaddii ilaa 8 qof in la magacaabo qof baaba ree awdala
iyadoo la cuskinayo leeyahay tabashada raawada baa wax laga qabanaya waa bal si saaidiye beersadkii meeshii aan intaanu ka cabarin in ka sareysa dawladda qoladeedii maamulka ku jirtay iyo odayadii iyo wixii loo xasla garanay war kulmiye diyaar uma aha dalkan saacadi xaq in wax la wada yeesho isla oo dabadihii iyo caalamkii kalena ay soo eegaanay wax sida ay nagu ixtiraamaan oo aynu dal sida ku noqono mar hadduu halka marayay inagu yeena noqon raawada lahaan dadkii burburiyay aynu halka faraha ka qaado tabashada bare ma jirto wax damo ka leeyahay ma jirto dawladaha dambe iyo xukuumadaha dambe soo baxa aynu sugno codkeenana kulmiyaan ka ilaashan go'aan wixii inta leeka waxba kama soo qaado wanaga saa ku kala tagnay maanta markay warqada soo baxday guddiga hadlaya odayna ma iman sharifna kama hadan masaajidna wax laga ma sheegin miidiyihii yani shabakadihii dadku dhalinyartu wararka isku dhaafsanayeen ayuun baa inuu arrinkaas khalad yahay oo waliba reer awdalaad uga hadlayaan soo gudbay 24 saacadood gudahooda wadani arrinkii ku joojiyay waan ugu mahad celinaya waxaan leeyahay waa xisbi ogol talada dadka waa xisbi ogol ummadiisan inta codka uu ka doonayo garan karaya iyo codka halku yaallo waa xisbi yani talada la wada leeyahay ixtiraamaysa yeynaan meel aan wax ka dayd lahayn wada kulmiyow yeynaan ku dawo khimaataaleya dabadeed waxaan uun keliya laba qodobo yani aan hadalka ku soo gabagabaynayaa waxaan leeyahay xildhibaanka axmed kulmiyo waxaan leeyahay haddii xilkan axmed yaasiin sheekh cali ayaanle oo ka qabtay golaha wakiiladu deyn yahay oo aad berri ka daba imanaysaanoo deyntiina sidii leedihiin hadduuba naga celisaya haddii uu yahay waa wuxuu xaq u leeyahay oo ninku fadhiyey axmed yaasiin codkii dadkiisa ku fadhiyey حقنا أولى لبيه طبعا حلبنا قولها صدق طبعا حلبنا رأي أولنا قولها فرديان يعني إنه قدومين نقضي حق ولا لو تجرا هرنا أحمد حنك أولي يمتي وما يسور الجلين عندنا كمان نعن عندنا كمان نعلون ما أنت حد يوصلك شيء إنه يضو حل طور شيء اللي بيجري ولي أنت لو صار الراعو أنا تام قبله حقنا نراقب لها إسنا حق نراقب لها إن وعن لا هي أنت كسر اسمه أحمد ياسين حق بولي أحمد ياسين وحرونية حلوان إن حداد تعيش هاي كلمية أو أنت هاي حلوان كل بيئة ورأيك وفكرك وتوسع سنتهاي كوكل نعمل كوكل منه حداد تعيش هاي كلمية أنا وادي أنا كشعله إن وعن كل لها كلية إن ده حسب جاء تعيش هاي قرن كتردي سماتها هي حداد يعني إنا تاجر تقعد أهل النقطة تقعد وحلت أطرت الدوريسو كو إلى هذا الشرع قرنك قولوا وين بتفلدا قولوا هي برلمان بتفلدا قدومك حق بتكلم نقطي واحد أقول هيلين كرتا كل مية حكومة ما تجرت أو عرفت مدحوينها قرنك ما تجوجن أقامين يا أحمد سيرانيان كو أنا جكرتا هذا الشرع يقول عليه نتكلم نحن النقطة وأن نقول إن ير أي عودة حكومة دي أو كل بلد نقول حرارة يعني كرسي قاعد فلذا ميزان كيسي ديارته وأنا كافر يعني هنك هاي ميزان كان له وأنا كافر يارنتي وعن كنت عيننا كل يوم محل هاي دين ما قبلنا دين ما قبله هلكا أو حك الدين رياض الله حرورية كل يوم ويمني يعوض سقوا أنت هذا وصعده والدين بان له هلا ويمني تدق بولي ويمني وحرت الدين رنتها أنك قاعد يورنيه سيد dhaqanka wanaagsan iyo ilbaxnimada ahayd soo dhaweeya iyagoo istiraxa nimakaasi hay naga soo noqdaan sharaf iyo karaamo saas ku jirta aad iyo aad baad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waaye maxamed jaamac abgaal muddo dheer waxaad ahayd wasiir haddana waxa la leeyahay maxamed jaamac abgaal markuu wasiirka ahaa muddo dheer horena waxaad ahayd macaarid waa kii madaxweynuhu wasiir ka dhigay wasiir baad muddo haddana kadib waxa la leeyahay markii dawladda ka tagaba halkeedii buu dhaliilo ugu jeedinayaa intuu dawladda joogana ma hadlaynin marka maxilka uma dawladda ku amaanaysa runtii oto wad ku maastadar waa run horaan macaarid baan ahaa xukuumadda waan ka mid noqday xukuumadda xilkii markaa ka tagay maantana macaarid baan laakiin de horta waxaan moodayay miidiyaha iyo saxaafadda idhamada u shaqeeya inay ummadda kale ka hormarsan yihiinoo si ay dad kale wax og yihiinoo waxay qoraan iyo waxay akhriyaan ka ilbaxsan yahay adeer mar haddaan xukuumad ka mid ahay habka aan wax u sheegayaa iyo halka aan ku sheegayaa dee miidiyaha iyo saxaafadda maaha miiska talada qaranka aan ka mid noqdee fadhiyo
ayaan dee dhaliishayda iyo waxa jira iyo dawladda isku nidhaana laakiin markaan ka baxo ee ka tago dee miiskii ma fadhiyo dabcan waa inaan miidiyaha mariyaa laakiin anoo ka tirsan haddaan wax dareemo oon rabo xukuumaddeedaan u sheego dee miiska taladaan ayaan ku sheegaya taan idinku ma ogaanaysiin shacabkuna ma ogaanayo markaa waxba iskama kay bedelaane dee halkan kolba marinaya hadalka ayuunbaa kala duwan adeer awdal waxaa isna ka soo jeeday madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo si marka loo eego dad badan oo arkaa inuu ka awood badan yahay taageeridda gobolka iyo arrinkii marka hadalkaagan inaad gobolkii aynaan waxba ka hayn soomamo horta madaxweyne ku-xigeenka qaranku madaxweyne ku-xigeenka qaranka somaliland oo dhan ree awdal loo ka soo jeedaa ma aha tartanku aniga isagii maaha anu waxba ka sheegi maayo waan ka badinayaana ma odhanayo gobolka waxba ceebtiisa iyo xumaan buu ku leeyna ma dhacayso laakiin dee anana madaxweyne ku-xigeen ree awdal un baanu wadnaaye ma aha mid dee aanu kala dunya iyo meel kale ka keennay ma wadnee dee wixii tartanka waan la tartamaynaa si xalaalaan ula tartamaynaa hadduu inaga badiyaanna adeer umaba filayne hadday naga badiyaanna dee hanaaya haddaanu ka badinana dee waxaan rajaynaynaa uun inkastoo dhan nidaamkii hawlaha inoo kala goynayey waan waa laydinka badiyey odhan lahaa aanu aad u muuqan maanta runta walwalkaas jiro haddana waxaan rajaynaynaa dee iyaguna inay noo haneeyaan adeer waa tartamayna maxamed jaamac waxaa jirta xaaladda gobolka awdal in maalmihii ugu dambeysay qabqabsi badan u dhexeeyey guddoomiyaha iyo golaha deegaanka madaxweyne ku-xigeenkuna uu shaqadii ka joojiyey barasaabka gobolkaas adu saad u aragtaa adoo gobolkaasi ka soo jeeda horta adeer intii aan miidiyaha iyo saxaafadda ka maqlay dee madaxweyne ku-xigeenka qaranku oo kursimihii madaxweynaha maanta wuxuu ka joojiyey inankaa shaqadii gobolka uu ka haya guddoomiyaha inkastoon jeclaan lahaa dee horta inuu gobolkale balaa ku horreeyo oo xantan socota ee madaxweyne ku-xigeenkii gobolkiiba wax ka wadaa iyo gobol taa inaan laga yar fiican yaan jeclaa haddana waa shaqadiisiibu qabsaday sida ugu jawaabay dee uu ku jawaabay barasaabka gobolkuna uu ku qanacsanaa waayo waa awoodda maanta madaxweyne ku-xigeenka qaranku leeyahay kusmaha madaxweynaha inuu yahay mar hadduu yahay inuu ka joojin karo ilaa wasiirka shaqada ka joojin karo inta madaxweynuhu mariyo madaxweynuhu markuu yimaadana hadduu waxaasi arrin sax ahaana sidaa shaqada inanka kaga dhammaan doonto haddii uu khalad yahayna dee madaxweynuhu sixi doono marka adeer inay shaqo saxay ka socoto halkaa ayuu baan u arkaa waxaa jirta guddigii ayaad ka hadashay markaa guddiga ma waxaa loo joojiyey tabashada ree awdal aad iyo aad adeer meesha waxa yaallo cod wanaagsan oo wadani leeyahay wadanina waa codoon waxaa u dheer waa xisbi talada ogol runtii annagoo aan arrinkaa waxba ka odhan oday weyne ka hadal meelo waaweyn iyo mas-uuliin kalena ka hadal anaa ugu weynaa malahoo hargeysa joogo waxaan taleefon hayn oo nimankaana dhex mari ma jiro laakiin kolkii ay arkeen dhallinyartii dareenkay ka soo cesheen arrinkaa waanu arkaya anugu in la ixtiraamay go'aankaana saxa lagu ku yahay inuu joojiyo waddani aad baan ugu faraxsanay waanu ku hambaliyayna runtii waddani